waxaan u jihaysanay maanta dawlad dadkeeda taqaana xuduudaheedu sugan yihiin gaarta horumar dhaqaale iyo isku filnaansho ay dunida kale kula jaan qaadi karto isla markaana leh maamul suuban sareynta sharciga kobcinta dhaqaalaha iyo hay-ado karti u leh in ay si tayo sare leh ugu adeegaan shacabkooda hay-adaha dawladda iyo dhammaan hay-adaha kale ee adeega bixiya waxaa la farayaa inay ku xiraan adeegyadooda aqoonsiga qaranka ma jiro dad adeeg la siinayo adduunka oo aan qofka identitygiisu ayna caddayn runtii horumar waxaa ku jira dhaqaale iyo siyaasadeed iyo amni iyo dadka Soomaaliyeed inay noqdaan dad ayaga laftoodu amni ku noolaado ayay noqon doonaan haddii la yiraahdo hay-adaha ka shaqeeya ama private ha ahaadaan ama public ha ahaadaan dadka u adeegana ayaguna fursad waxay helayaan dhib yar oo maxaan ku dhahaa si dhib yar dadkooda ugu adeegaan waxaan rajaynayaa ilaahay idinkiis inuu gaaro qofka muwaadinka Soomaaliyeed sida meel badan ka jirta asagoo gurigiisa jooga inuu wax alla wuxuu maanta u baahnaa adeegaha gurigiisa ka helo gudaha inuu halkaas inuu ka apply gareeyo kulli wixii inuu meesha ka helo hadduu passport u baahday iyo haddii uu ka maxaan ku dhahaa visit uu dhakhtar u baahday iyo haddii uu inuu jaamacad iska soo register u baahday iyo haddii uu askari soo qortay iyo haddii uu raba sameeyay waxaan rajaynayaa wax alla wixii u baahday inay uga ay gurigiisa asagoo joogo inuu helo wixii oo dhan u sahlanaato taasaan insha Allah u soconaa hadda laakiin tana inaga inoogu muhiimsan saynu u gaadno waa inaynu xoojinaa arrintaas insha Allah